السلام الله عليكم صاحب قيمة عليه كل صدق هذا جنرال كان فرح كل صدق هذا ورئيس حيس بدن وأنا لا يرانينه أكثر كأما جلاج عنك عبد الولي عمر أما جمال هذا سداد وتقانان مركه هو صدق كل صدق جنرال كان فرح عبد الولي مرنا جمال بندوه ضد بدن وحي سويدينية وأي هيجن وجيران kuwa isla waqtiga maal saacada haday ayaga wadi lahaayeen 22 bisha gaarsiin lahaay si ay u helaan musalsalka haboon qaybtiisa labaad ama season 2 sharaf iyo karaamay noo tahay caawa inaan kula kulanno waxaan kaaga mahadcelinaynaa sidoo kale inaad waraysigan qiimaha ay qaayaha aad naga ajiibto oo aad soo ogolaato waxaan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale inta uu waraysigeena socdo Cabdi Weli waxaan jeclaan lahayn su'aalo dhowr ah inaan kugu weydiino marka waxaan filayaa inaad dhankaaga diyaar tahay kulli diyaar ah su'aalaha af Soomaali ma dhaw ma aad u mahadsan tahay dad badan oo musalsalka haboon ku xiran ama qaybtiisa hore soo daawaday runtii aad ay ula dhaceen halka dad kale ay isweydiinayaan arinta ah Jamaal ahaan qaab noocee ah ayaa lagu xushay inuu musalsalkan atoore ka noqdo yaxay su'aashan dhowr jeer ka jawaabay kulli haddana waa ka jawaabaya sideedaba horta markii la sameynayo wax ku cusub bulshada markaas jirto way adag tahay in dadka markaas ka shaqeynayo ha noqoto farsamo ahaan iyo ha noqoto jilaa ahaan in la helo dadka ku habboon mar walba musalsalka haboon markaan bilaabeynayna waxa adkeed ama xaalad ahaan waxay ahayd Soomaaliya markii ugu horeysay oo la sameeyo musalsal ama film taxana ah oo si professional ah oo la jaan qaadi karo sida filmaanta taxanayaasha caalamka oo kale waxa ku baxayo markii waxa soo kala la sameynayo juhdi badan waqti badan qarash badan waqtiga badan awgeedna waxa loo baahanayaa in la helo dad professional ah ama waxa la sameynayo markaas wax ka fahansan si waqtiga u beeqaamismo oo wixina wax tayo leh noqdaan marka maadaama markuu ugu horeysay projectiga la sameynayo projectiga ugu horeysay Soomaaliya uu ahay aniga ugu horeeyay dhihi karaa waxa loo baahnaa dad hore wax isu sameeyay ha noqoto jilaanimada wax ka fahamsan ama filmaan hore isu sameeyay kulli aniga shuruudahaasaan buuxiyay sidaasaan ku noqday actorka filmka haboon mana jirin wax oo maaragtay aan isdhahay hadda maanta dadka waa kaga duwan tahay ama dheer tahay oo lagu xulan karo ma jirto laakiin waxaan qiyaasayaa in waxaana fikir ka haystay jilida iyo waxyaabahaas oo aan fikir ka haystay iyo aan jeclaay inay adiga caawisay inaan noqdo qofkii koobaad jilayaasha caalamka waxaan inta badan aragnaa ayadoo la falanqeynaya dhaqaalaha filim jilista ay ka sameeyaan ma la dhihi karaa kuwa Soomaalida ay adigaba ka mid tahay dhaqaale fiican ay dhanka filim jilista ka sameeyaan horta su'aal fiican waa su'aashaas marka la joogo adduunka iyo Afrika markaas imaan haddana Soomaaliya imaan waa saddex darajo kala duwan aktarada adduunka mushaaraadka ay ku shaqeeyaan waxaan u maleynayaa markii loo barbar dhigo iyo Soomaaliya iskuma dhow Afrika xitaa iskuma dhow Soomaaliya marka la joogo waaqica hadda aan ka hadalno Soomaaliya joognaa Soomaaliya fan sidiisa waa yarta in lacag laga sameeyo waayadan dambe laakiin waxa soo baxday YouTube iyo maaragtay TikTok iyo Facebook page iyo dadka yacni qofka shakhsi ahaan inuu YouTuber noqdo meelahaas lacag ka sameeyo laakiin qof jilaa ah oo shirkad Soomaaliyeed inta filmaan contractiga la galo lacag ka sameynayo in mustaqbalka la gaaro rajaynayaa oo ay fahmaan dadkeena lacag badan aan laga sameyn karaa oo lagu dhiirado dhanka jilista marka ay timaado Cabdi Weli marna Jamaalow daaraktarada ama dadka wax jila labay kala yihiin san filay aktarada
qofba meelay ugu baxdaa oo qofba iyadoo ay tahay qofkii shaqo loo idmaday oo uu maaragtay uu diidi karin haddana qofku waxaa jira waxyaabo si gaara waa asiga u jecel yahay oo filmaan waxaa jira si gaara uu xiiseeyo inuu jilo adi ahaan filmaanta jacaylka ah iyo marka laisku kala dhigo filmaanta dagaalka ah kuwee aad u jeceshahay naajishid yahow horta wadamada ama adduunka marka la fiiriyo waxaa sheekooyinka laga sameeyaa caqabada wadankaas markaas ka jirto hadda maraykanka oo kale haddaa fiirisid teknolojiyadaha caqabadaha haysto kaleeto dagaalada ay adduunka u aadaan oo kale markay ciraaq aadaan afghanistan yacni waxyaabahaasay ka sameeyaan filmaanta يعني la dagaalanka argagixisada waxyaabaha kala kulmaan caqabadaha haystay tahay moogtay kuwaas filmaan ka sameeyaan ana marka waxaan jeclahay Soomaaliya marka la yimaado in caqabadaha Soomaaliya la ka jiro waxa filmku wuxuu yahay waa film xuquuqaya inta badan in bulshada loo wacyigeliyo filmku lagu sheegaa waa bulshada la wacyigeliyaa sax musalsalka haboon jecelha laakiin wacyigelin badan waxa ku jirta bulshada wax badan laga wacyigelinayo waxaa kaloo jiro film naftii hore lahaayo oo aan jiray oo ku saabsan dhibaatooyinka kalluumaysatada dalka haysto ma doonaa marka wuxuu ka hadlayaa waaqici oo markaas dalka ka jiray ani marka inta badan waxaa jeclahay waaqica waddanka ka jiro inkastoo hadda aysan inteeda badan suuroobeynin waddankeena waxaa haysato abaar oo gaajo khayraadka dalka beerihii in lagu dhiirigeliyo beeraleyda in filmaan laga sameeyo qoysas beeraley ah in filmaanta laga sameeyo Soomaalida reer miyiga badan tahay in reer miyiga filmaan laga sameeyo sidii noloshooda tahay hadda hindida waa aragtay waxay ku soo aruurtay in caasimadihii dabaqyada dheeraa iyo laga soo xaro waa laga soo guuray filmaanta hindida ugu badan hadda waxaa lagu jiraa gobolada inteena badan dadkeena waa la soconaa waa fiirsataa marka Turkida fiiri musalsalada Turkida inta badan hadda baadiyaha Turkida loo sameeyaa gobolada loo raraa maxaa keenayo magaalada nuxurka ee beeshay yani qof walba dalkiisa oo aniga maanta hadii aan awoodo inaan balcad tago oo aan matalo nin ma aragtay aseenta balcad ku leh oo xoolo haysto oo sabixii xoolihiisa dhaqanaya film inaan sameyn karo oo amni ahaan iyo dawladdeeda ay fuudayso tasjiilad ahaan ma aragtay yani wax oo aan uga baahanahay inaan caasimad film ku sameeyo ma laha marka waxaan aad u doorbidi lahaa dad badan waxay ku dhiiran lahaayeen waxaan aad noloshaas yes in filmaanta tusaalaan anaga filmaanta waxaan baahi u qabnaa amni in la taabto amni darada dalka maxaa keenaya qorayaasha filmada waxaan rajeynayaa iyo daaraktarada inay ku dhiiradaan dowladda laftirkeeda in ay budget ku bixiso يعني إن لسميه ريسيرش فيلمان علمية سنة لسميه يعني ريسيرش إن لسميه أيضا حلقة الرادينية حلقة أيضا الرادينية أمن دراسة محانو كيني إن سيدا الصحة إن أنا ماشي أي دولة كلية إن أنا لغو أمان إن بونتي الصحة العبارة dhibaatooyinka kale ee dadka kale geysana in ayagana boontigooda saxda la abaaro oo aan laga leexan si halka loo gaaro shacabka meesha ay gaabiska kaliya filmkan loogu sheego film ahaan loo sameeyo waxa imaanayo wacyigelin badan ugu dambeyn waxa la gaarayaa halka marka waxaan jeclaan lahay aniga mar walba hadii la dhaho film maxaa sameynaysaa in waaqica dalka ka jira inaan ka sameeyo marka laga sameeyo musalsalka haboon Cabdiwaliyow si soonkiisii sidaan soo daawaday wuxuu ahaa qaybo badan oo humaan iyo arrimo badan oo sidaan filayno isfurfuri doono season 2ga laakiin inta ugu badan wuxuu ahaa adiga oo haboon si gaar ah uga warqaba xaafadii iyo haboonna kala ilaalinaya adigina iska ilaalinaya in haboon aysan xaafadii ku arkin inaad si gaar ah maaragtay aan lagugu xaglin haddana oday aduu nin dhalinyaro ah wax isku xeeladeynaya ahay jacayl qaasana waa idinka dhexeeyaan dhihi karaa sababtaa markay culays haboon dareento qofka koowaadey la soo cuskanaysay adigu ahaa intaan soo daawanay adiga waxaan filayaa Cabdiwali ahaan inaad family tahay arrintaas ayada ah maadaama xiise gaar u lahaa marba laga shaki ma karto sida caadiga ah adduunka hadda anaga islaam baan nahay
waxyaabo qaar oo badan aan xadidayo صح oo islaamnimadeena maaragtay alxamdulillah oo naga xadidayo hadda taana uma mareynayo in filimka Habboon dhexdiisa wax oo laga masaari karo ama maaragtay xadgudub family ah inay ku jiraan waxa kale tan kulli aniga qoyskayga qoys fan waaye صح xaaskayga fanaanad maxaan yiraahdaa waana jilaa oo hadda ka hor filim isla sameynay صح marka ma jirto pointi oo hadda tan oo keeni kara in maaragtay family ahaan dhibaato ay keento meega muuqan aniga صح mana arag waa ilaahay mahadiis marba haddaysan arrintaas ayada aan xaafadda si kale looga fahmin waayahay waraysigeena sii wadan doonaa hirgelinta shirkadaha filimada sameeya ganacsatada caalamka sidaan ognahay way u tartamaan oo inay qarashkooda geliyaan ayagaa u haba kuwa Soomaalida in yar mooye inta badan ma jecla oo kuma dhiiradaan inay qarashkooda ay ku aaminaan filim la duubayo sababtu maxay tahay Abdulyo yo su'aal fiican ay weydiisay inkastoo aan rabin inaan la arkin gaf inaan dad gaar u geysanahay صح laakiin waxaa muddo dadkeena ganacsatada yani inta ilaahay u saamaxay inay ganacsato noqoto ama lacag hesho in lagu qufulay fikir diini ah oo maaragtay ayaga laftirkooda haddii maanta la dhaho daliil ama wax u keen aana jirin in lagu qufulay صح tusaale ahaan shirkadaha adduunka صح wadamada iska dhaaf reer galbeedka iyo iska dhaaf gaalada iska badhaaf laakiin caalamul islaam markaa tagtid wadamada carabta ah wadamo waxaa jira weli diin ahaan iyo in diinta lagu dhaqmo iyo in sunnada lagu dhaqmo boqolkiiba boqol anaga naga badan صح adduunka ka jiro Sacuudiga jiro Imaaraadkaas jiro waxa wadamo badan jiro caalamul islaam ah ganacsatadooda ama shirkadahooda way fahansan yihiin macnaha uu film leeyahay wayna ku dhiiradaan inay maalgeliyaan midda kale aan ku sheego fiiri wax la maalgeliyo oo lacag laga sameeyo waxaan aaminsanahay filimadu wuxuu ku jiraa kaalimaha koowaad inta badan wixii la geliyo ma qasaaraan baa leedahay totally ma qasaaraan in lacag dhab laga helo moogiye haddii marka kulli culimada ayaga naga og صح laakiin aniga waxaan aaminsanahay filmaanta ama fanka dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo صح waa jiraan dad filmaan anshaxuma sameeya ama wax diinta ka baxsan sameeya laakiin sideedaba filimka hadda filimka Habboon oo kale wax diinta ka baxsan ku aragtay maya yani drama filmaanta Soomaalida action noqoto filimku wacyigelin marka ay tahay marna waa sadaqo mar waa ajir mar waxa waaye lacag ka hel mar waxa waaye bulshada wax ogeyn inaad baraarujisid yes arintii aad xitaa characters kale isku qabsadaa fiiri ani maanta anigoo aan wax balwada lahayn haddii ay noqoto inaan wacyigelin ka sameeyo balwada oo qof balwada dilootay oo nolosha balwada la dhacday inaan rabo inaan wacyigeliyo qamiis cimaamad ma xirna صح waa inaan horta characterka qofka sameeyaa dhibkii iyo maraayay iyo jabkii waa in qofka wadana yes balwadan oo qofkan uu ku dhibtoonayo waa inaan horta sameeyaa aniga Angela adan Soomaa kadib waa inaan wanaag la soo aadaa waa inaan tusaa qofkan caqabada ay leedahay ama xumaanta ay leedahay balwada waa inaan ka gadi karaa asaga laakiin haddaan dhoo qamiis cimaamada xiranaya qof wanaagsan ahay qofkii balwadaysta si koorma marka wax u sharaxaya laakiin culimada wacyigelintooda way fiican tahay taas waa maxaa maaragtay waa Allah noo dhaafo marka aan filmaantan ka hadlaya waa inaan marka qofkan hadduu sigaar cabi jiray ama jaab cuni jiray waa inaan matali karaa hadduu jeega xiirin jiray waa inaan jeega xiirtaa marka micnaheedu ma aha intaas markaan sameynaa inaan anigii ahay qofkii laakiin wacyigelin waxaa sameynaya oo dhammaadkeeda ay leedahay waxaan inaysan wax wanaagsan ahayn oo wax wanaagsanna la aado waa la soo waayay qofkiina uu soo waayay marka shirkadaha Soomaalida ah haddii oo dhanka wanaagsan ay filmaanta ka fiiriyaan waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol faa'iido fiican inay leedahay dalka horumarkiisana inay ka qayb qaadan karaan waxaan saas u leeyahay waxay tahay dalka horumarkiisa waxaa loo qayb qaadan karaa wacyigelinta haddii la badiyo wacyigelintu waa badan tahay bulshada maanta haddaan tusaale yar u soo qaato ka waran wadada inaan wasakh lagu daadin
ama qashinka inaan sameeyno dariisyadii ama buuq noocaas camal film laga sameeyo in qashinka la nadiifiyo qashinka meel wacyi gelin yar oo 5 daqiiqo la sameeyo xadiisna nadaafada ku soo dhow Soomaa marka maxaa dambe ka dhigaya صح marka shirkadaha Soomaalida waxaan ku dhiirigelinayaa ayagoo lacagna ka helaayo inay filmaanta dhanka wanaagsan ka fiiriyaan kuna dhiiradaan ee lacag geliyaan lacag badan laga helaa wajiga labaad ee musalsalka Habboon waa soo gabagabeeyay sida ognahay shirkadda Astaan Films maamulkeeda aan halkan ka salaamayno ugana mahadcelinayna waxay ballamiyeen waqtiga filimkaas ama musalsalkaasi uu bilaaban doono Habboon kadib Abduuli maxaa xigi doona soo wada qorshihiisa horta qorshooyinka ma yara qorshooyin badan jiro oo aan hadda inta ku hor dhici doonin laakiin hawlaha ma yaro waa isdul saaran yihiin ma aragtay waqtiga nahaya kaliya ma aragtay hadda musalsalka Habboon inta ku dhow sanadan jireen laakiin dadka ma fahamsano waxay leeyihiin war maxaa lagu haystaa Soomaali waxay bilowda ma dhamayso صح lagu leeyahay filmaanta Mareykanka oo taxanaha anaga December hore filmka Habboon soo baxay sida saxda ah dadka waa inay ilaa December hadii la dhaafo oo filmkiina soo bixi waayo in la eeda xaq loo lahay laakiin waqtigiisa kale waa ku imaanay sida standardka oo heer caalami ah waan marnay waqti badan waan gelinay wax tayo leh waa sameynay marka wax walba waqti qaadanaysa marka qorshooyin kala jiro oo aan hadda ka hor dhici doonin Habboon wixii ka dambeeyo qorshooyin badan jiro doon insha Allah laakiin hadii la nool yahay waa la arki doonaa qorshaha ma kugu jirtaa Abduuli oo meel ka baxsan dalka Soomaaliya inaad film ku jisho jilistaadana inaad caalamka u soo geyso adii ahaan أنا هرتا عالم كموسو جيكري سوق جينتا وحتاهاي أنا مركان وحجرها إلا كرانكي إن سي دا عادة أنا وحسمايو أو سي صح أو حسمايو وحي سيد اللي بوجودي بعده كنت أنا كانوا أودي ذو أنتاس صح لكن عالم كيبرشة الدونك وحنا جدي كرو نتكلم سوماليتي dadkeen Soomaaliyeed hadda xaqooda qiimo ka yeelano oo ina qiimeeyaan oo maaragtay qofka ajnabiga ah ay yaqaanaan ee dhahan filmka ma fiirsatay wali filmka Habboon ma fiirsatay ama film hebel ma fiirsatay waxa ka hadlaya hadda salaam naftii huro kala subtitle oo leeyahay English ah haday dhahan naftii huro filmka fiirso qisa ahaan waxaan maaragtay ka hadlayaa been abuurka ay naga sameeyaan reer galbeedka inta badan oo burcabeedka laga sameeyo oo ka hadlaya kulli waa fiirsan doontaan adika hadii qofka ajnabiga uu yaqaan qof walba Soomaali uu yiraahdo ninkan actor waaye ee shirkadan filmkan soo saartay Soomaali waaye qofkaas wuxuu ku dhiiranayaa inuu filmaanta Soomaalida xiiseeyo laakiin aniga ahaan haday tiraahdo inaad Soomaali meel ka baxsan film ku jisho haday shaqo ahaan ila gasho waa goonideed laakiin ma doorbiday mar walba inaan Soomaali inta ka baxo film qisa Soomaali quseeyo wadan kale ku sameeyo mana ku dhiirigelinay mana maaragtay soo jeedinay Abduuli dhalinyarada dadka jaaniska nooca oo kala hela inta badan waxay isku dayaan inay raadiyaan fursad ay dalka uga baxaan shakhsiyan adiga waxa tahay shakhsi muddo kooban qorsheynaya inuu dadka inta badan yaqaano oo horin yaqaanay way ogyihiin mowqifkayga mara waa jirtay aan rabooday inaan dalka ka tago xilligii dagaalada waxaan qiyaasaa inay dabeeqada 2007 bilowgeedii inay hada Mareykanka صح waa Muqdisho dagaalada ugu kulmay ka dhaceen صح waan qaxnay waxaan nabad u doonanay Itoobiya Soomaaliya qofba meeshii markaas uu aadi karo aaday صح markaas waa jirtay process bixid ah in la xareeyay صح haddana wallahi been ku sheegay processkii ii socdo oo wali gabagaba ku aadan oo meel fiican marayo ana isaga socdo Soomaaliya maaday Soomaaliya markaa imaaday 2013 ka Soomaaliya ku soo laabtay Muqdisho imaaday Muqdisho markaa imaaday waxbarashadeedii sii waday muku qasaaray maanta alxamdulillah
dad badan oo is naqaano aan isla joognay Addis Ababa kulligood waa Yurub wada jiraan qaarna inta isla joognaa صح maanta hadda wax oo uma maleynayo wax ay dheeriyiin maanta inay jirto صح kulama ay sii dheeriyiin qurbo iyo maaragtay in ay subax alisay kala haano marka wacdigu wuxuu ku leeyahay waa ordooya صح maxaa la ii sheegay qofkii ma dhalay ilmaha wada ilmaha jaanis ma haayo صح ma fahantay صح waxa uu dhawaay saaxiibkii Cusmaan Hoosow ها 2015 waxaa la sameeyay film ku saabsan tahriib صح ilaahay amarkiis filmku wuxuu quseeyay waxaan ka hadlaynay dhalinyarada iyo dhibaatada shaqo la'aanta ku haysa dalka asiga character wuxuu jilaayay ma wada joogteen markaas xamar Cusmaan Addis Ababa asleeyn Muqdisho asleeyn marka character wuxuu jilaayay Muqdisho ku jirna filmkaas صح character wuxuu jilaayay boofis in uu dalka ku qanacsaneen صح shaqo iyo wax uu sarreeyay صح oo mar uu inuu tahriiba ay ka go'an tahay صح ilaahay amarkiis muddo kadib waa baxay asaga صح hadda maanta Yurub uu joogaa waa salaamaya Cusmaan Hoosow aad igu qaaliyo ninkaas salaamaya ma sha Allah marka hadda maanta Yurub uu joogaa ilaahay meeshiisii waa ku dhib yareeyay oo wax dhibo ku qabo laakiin ani ahaan marnaba ku fikirin in aan Soomaaliya ka tago marka laga reebo marka aan arko waa dhacda mar niyadeeda inaan dhoofno meeshaan meel la joogi karo maaha صح waa marka arka dayacamni iyo marka aragto qof saaxiibka oo shalay kula jooga ama dad kula jooga uu dhintay lagu dhaho ama qarxu ku dhintay ama dad badan oo saaxiibadii dhamaaday oo qarxay ku dhamaaday ilaahay wada naxariisto iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed markaas oo kale alla ilaahay nidaad waa soo galaysa warniyo meeshaan meel dhaanto ma raadisa haddana markii 3 maalin 4 maalin laga soo wareego oo wixii la iloobo qofkaaga hore noqonaysa waa xasleedan Muqdisho ma ka tahay kartaa marka hadduu aragta hawo macaan qurux badan ma sha Allah dibna ma haysto marka ilaahay dalka nabad nooga dhigo Abduuli waxa noo kala saartaa waxa jira dad 3 maalin ama 4 maalin intay maqnaadaan keena muuqaalo ayagoo ugu magac daray filmaan iyo muuqaal kaas aad sheegto waqtiga maqnaanaya farqiga u dhaxeeya muxuu yahay farqiga u dhaxeeya waxay tahay ani farqiga u dhaxeeya kaliya waxaan dhihi karaa tayada Soomaali maalin walbo film soo saarta صح qobayada soo saara صح marka waxaan qabaa aniga oo dadka filmada sameeya ama jecel ah ku dhiirigelin lahay 5 daqiiqo xitaa hadaa sameynaysid wax tayo la sameey in waqti loo huro filmkan tii hore waxaan maleeyaa 12 daqiiqo صح 12 daqiiqo inta aan aad is wareysanayno waay صح way ka badan tahay marka laakiin filmkaas waxaan sameynayay waxaan maleeyaa 5 bilood wax raacsanen filmkaas sameynayay waa wax yar oo 12 daqiiqo ah صح lacagta ku baxay haddaan sheegan haddaan ma bal aaminayno waxa la leeyahay bax marka dhalinyarada iyo dadka shirkadaha iyo YouTuberska jecel inay filmaan sameeyaan waxa jiro waxaan arkay yaan la xaqirin صح dhalinyaro TikTok waxa jirto ku sameeyso waxyaabo yar yar oo gaagaaban oo hal daqiiqo ama ka yar ah صح laakiin ka macaan film muddo soconaya riwaayado la soo saaray oo kaamirooyin inta lagu duubay meelo la aaday waxa laga yaabaa dhalinyarada inay mobile isaga duubeen tayo ahaan muuqaal ahaan isku xirshaka ahaan صح aad u amaanaya ma sha Allah magacooda ma xasuusto waxa ka mid ah nin dhalinyaro la dhaho Kaamilid ninkaas waa ku taxanahay aad u salaamayna TikTok isna follow u yahay صح يعني waxa kale oo jira niyo team kale to waxa la magacooda iga maqan inay balcad ku soo sameeyaan oo maleynaya waxa film musalsal eedan la yaabay miyaa film waa Kaamilida teamkaas laakiin team kale waxa jira ayagana balcad ku soo sameeyay muuqaalo oo inta badan muuqaaladooda waxay ku soo gabagabeeyaan wanted أنا في السماء قال وارك أيضا آذي ومانين تيم كاس وأمان يا بدنا صباح ذا دنك تيك
kuwa badan oo xasuusan waa jiraan laakiinse wallahi ma aqaan hadda markaas laakiinse boqolkiiba boqol aniga tiktokooda follow uu yahay wax walba ay soo dhigaan waa la socdaa marka waa niman talentigooda maasha Allah yahay dadkaas camal ku jiro dadkaas haday kaamirooyin helaan maxay sameeyaan waxyaabo ay sameeyaan dhiirigeliya dhalinyarada soo xalato dadka qalabka haysto lacagtana haysto maxaa la yiraahdaa waqtigii wax walba isku haysto haddana inta kaamirad la boodaan oo tusaale aan aad wareysan sameeynona film waxa arkaysa mikrofonkiisa muuqdo film qof sameeyna mikrofonkiisa muuqdo inta laga arkay waa wareysi naga dhaafo yaalow waxna ceebeynina marka wax tayo la sameeyo waa taageersan gudaha soo galan yaa leedahay sheekooyin qisooyin fiican ay sameeyaan laakiin waxay u baahan tahay in waqti la geliyo degdeg waxa waaye degdeg ma fiicno tartiibtiina 2 bil 3 bil ay ku qaadato sabra wax tayo leh macaan soo saaraysin markaas dadka halka abaash ku xirta anaga ku ka ah ani tiimkii laakiin waa ka bedelayna insha Allah filan soo sameeyno ma riwaayad waa anaga waxayna filan madax okay ugu dambeyntii dhalinta Soomaaliyeed ee jecel inay ku soo biiraan masraxa film jilista Cabdiweli ma aaw maxaa kula talin lahayd wallahi waxaan kula talin lahayd waxaan dhahayaa wada fiican haysin sax laakiin wax wanaagsan sameeyo waxa sameynaysaa ha noqdo wax aan diintaada ama islaamnimada muslimnimada wax u dhimaynin sax dhaqanka Soomaalinimada wax u dhimaynin adiga shakhsiyadaadan iyo qoyskaaga wax u dhimaynin بريتو لا تعطي ما تقدر يرتاحي واحد الشعب ما هذا ما تسمسه صح بري إلما يرانيسا شن سنة هذا كده فكر كهذا كده أنا شن سنة كور واحد رمي وأزمين جرنا هذا تان هذه نلاقي ريكورد كرين لهاي ما أنت حدي لا ولا يعني جسارة صح مركز بري إلما هاجا مركز وين هذا أول أنا قني إيه أنا قني صح إلما هاجا واحد قرح هذا وريكورد كرين هذا هو ذا صح مستقبل كل يلالي نيدو يلالي بري إلما هاجا يلا دين waxa ku dhashay hooyadii saasay ama aabihii ma aragtay noocaas adoo isdhahay hal habeen sameey sax ama bulshada inuu soo jiido adoo isdhahayo wax anshax iyo diinta iyo ma aragtay dhaqankeena dadnimada Soomaaliyeed diidahay sameeyna laakiin wax walba wanaagsan qofka sameeyo sida dhalinyarada sheegeen oo kala kaamilitay tiimka balcad joogay tiimka balcad nugucooda xasuusta ugu fiican lahayd halkan aan ka salaamayna saaxiibadeen aniga laftirkeyga way ugu wareegayaan marka aadan u salaamaa mamari muqdisho imaadaan xisaab waxaan rajaynaynaa markaas inaan kontaktiyadooda helo wax wanaagsan sameeyo haddaad wax wanaagsan samaysid aad u mahadsan tahay Cabdiweli Cumar ayuu ahaa ama Jamaal qofba sidoo uu yaqaano actorkii filimka Habboon aad ayaan kugu mahad celinayaa wareysigana aad naga ogolaatay sharafeeno tahay waxaan ku leenahay inaan mar kale kulanaan rajaynayna hadii Ilaahay insha Allah wareysi kan ka xiisa badan aan ku kulanno aad u mahadsan tahay baahda nala farax oo isku duuban wuxuu ku leeyihiin aad u mahadsan tahay